wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii sheekooyinka fanaaniinta iyo qisooyinka fanka Soomaalida. maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa qisadii gabadhii caan baxday ee abwaanku jeclaaday ee Beerlula. Beerlula waa inantii uu jacaylka indho la'aanta ah u qaaday abwaankii weynaa Allah u naxariistay Hadraawi. waa inantii magaceeda miyi iyo magaalaba dhul Soomaaliyeed uu gaadhay. waa inantii muuqeeda iyo muunadeeda ay noqotay mid hablaha Soomaaliyeed ay ku halqabsadaan. waa gabadhii heestii loo sameeyey uu hobol caan ah ku luuqeeyey. haddaba qisada Beerlula sida ay ku bilaabatay abwaanka ayaa baniixiyey shaygana halka ay ku kulmeen sida uu jeclaaday gabadha kulankoodii iyo weliba halka ay ku dambeysay qisada iyo jacaylka gabadha Beerlula. waa sanadkii 1970kii. waa Beledweyne, waa buundada liiqliiqato, waana Beerlula. Allah u naxariistay abwaanka weyn ee Hadraawi iyo fanaaniin badan oo ka mid ah kuwa fanka Soomaalida ayaa iyagu tabliiq faneed iyo mid suugaaneed ka waday gobolada kala duwan ee geyga Soomaaliyeed. tabliiqa fanka iyo suugaanta ay ku kala gooshayeen fanaaniinta Soomaaliyeed gobolada kala duwan ee geyga ayaa ugu dambeystii geedigiisa waxa uu salka dhigtay magaalada Beledweyne. abwaanka iyo fanaaniintii la socotay markii ay nasteen magaaladana ay degeen jawiga iyo hawada magaaladana ay la qabsadeen ayuu abwaanku malaha wuxuu is yiri soo luga baxso oo magaalada soo indheey isagoo doonayay inuu soo arko buundada ee magaalada caanka ku tahay ee liiqliiqato oo aan iyadu dhintaba lahaynin hadbana dhinac u dhicleeda qofka fuushan ama qofka korkeeda ku socda. abwaanka iyo saaxiibkiisa oo macalin ah oo iyagu isla socda ayaa buundada soo fuulay. markii ay dhaxbartanka socdaan oo ay webiga iyo weliba geedaha dhinacyadiisa ay daawanayaan ayaa humaaga dhinaca kale ee buundada uu ka soo muuqday. abwaanka ayaa sidaa humaaga u eegay mise waxaa ka soo dhex baxday inan Soomaaliyeed oo heebada iyo hanaanka ka muuqato aad is leedahay malaha ma aha hablihii dhulka iyo adduunyada ku noolaa. gabadha halkaa soo fuushay sarajooga iyo muuqa iyo habka ay u samaysan tahay waxaad is leedahay waa dadkii kitaabkiyo diinteenu sheegtee deganaa firdowso soo daahira. abwaanka maskaxdiisa iyo maankiisa ayaa tagay. af Soomaaligii baa ka lumay wax uu ku hadlo iqaab uu gabadhan ahlu jannada ah uu la hadlo ayuu waayay. abwaanka ayaa markaa gabadha kalimaad af Carabi ah wuxuu ku yiri subxaana man khalaqak. gabadhii hoos eegaysa xishoodkii dumarka Soomaalida lagu yaqaanana la timid waxay ugu jawaabtay shukran. abwaanka ayaa isagu hadalkaasi meesha kaaga sii amba qaaday. gabadhii uu la sheekaystay lana kaftamay. kaftan iyo sheeko gaaban ayaa gabadhii abwaanka dhexmaray. waxay ku ballameen inay isu yimaadaan. waxay u sheegtay halkay magaalada ka degan tahay iyo aqalkooda meesha uu yahay. abwaanka oo socalla jacaylka uu ka qaaday gabadha muuqeeda uu si kadisa u arkay nadratun fabtisaamatun fasalaamun fakalaamun famawcidun faliqaa'un waatuu ahaa. qisadaasi ayaa halkaasi ka dhacdayo indhaha iyo muuqa iyo kulankii jacaylka ahaa iyo isu dhoola cadeyntii iyo qosolkii iyo salaamidii iyo kaftankii ka dhaxeeyey iyo weliba kulankii iyo isbalansigii iyo weliba ahdigii la wada galay intaba. qisada iyo weliba sheekada gabadha siduu ula kulmay siday u kaftameen halkay ku dambeysay gabadha inuu calfan waaye iyo weliba inay ugu dambeystii hogaamiyihii kooxda uu diiday in magaaladaas la sii joogo. abwaanka ayaa isagu ka sheekeeyay meelo badan goobo badanna ka sheekeeyay heestana ku faahfaahiyay qisada min bilow ilaa dhammaad. haddaba laakiin maanta inagu waxaynu ka hadlaynaa qabaa'ilada Soomaaliyeed ayaa iyagu waxa isku qabsadaan inantaasi joog iyo jamaal kale ee magaceeda miyi magaalo dhul Soomaaliyeed uu gaadhay cidda ay ka soo jeeday gobolka Hiiraan. inkastoo qabiil uu badan yahay haddana qabaa'ilo kala duwan ayaa dega. qabaa'iladaasi kala duwan ee dega gobolkaasi iyo magaaladaasi waxa ay sheegteen inay gabadha abwaanka ka hadlayo iyaga ay ka soo jeedo. qabiilka ugu badanna waxay leeyihiin gabadha inaga ayay naga soo jeedaa.
haddaba soomaalida ayaa taa dood iyo waxa ay ka keentay isfahamwaa. soomaalida oo iyaku jecel wax kastoo la ammaana, wax kastoo qurxan inay iyaku isa siiyaan, ayaa waxay isku qabsadeen gabadha Beerlula cidda ay ahayd iyo qabiilka ay kasoo jeedo. soomaalida oo ah dad qabyaalad iyo qabiil uu u yahay diin, ayaa iyaku doodaasi waxay isla gaadheen mid walbaba inuu sheegto inay Beerlula qabiilkiisa kasoo jeedo. laakiin si kastoy ahaataba abwaanka ayaa taa si dhab ah u cadeeyay. abwaanka ayaa waxaad is leedahay wuxuu ogaa in soomaalida isku qabsan doonto gabadhani uu ammaanta kala dul dhacay, jaceylka indha la-aantana u qaaday, magaceedana uu gaadhay meel kastoo gii Soomaaliyeeda inay isku qabsan doonaan soomaalida. abwaanka ayaa heestiisa waxa uu ku cadeeyay gabadha halka ay kasoo jeedo, magaalada meesha ay ka degan tahay iyo weliba cidda ay tahay. goob magaalada Beledweyne oo iyadu laba qeyb ah ayaa labada qeyb waxaa kala dega qabaa'ilo kala duwan. dhanka bariga magaalada waxaa degan beesha Xawaadle oo iyagu dhinacaasi gooni u degan. dhinaca kale ee galbeedkana ama qoraxsinka waxaa degan qabaa'ilada kale oo gaaljecelka u badan yahay, baadacadaha, makanaha iyo inta kale ee halkaas iyagu dega. abwaanka oo isagu cadeynaya in qabiil kale aysan gabadha ahaynin ayaa heestiisa waxa uu ku yiri: dhanka bari magaalada soo boqorad joogto, biyo dahab la moodo, bilicdii haweenkiyo bilo loo dhameeyo. dhanka bariga magaalada Beledweyne waxaa dega beesha Xawaadle. gabadha Beerlula waxay kasoo jeedaa beesha Xawaadle. abwaanka ayaana taa cadeeyay. dhanka bari magaalada soo boqorad joogto, biyo dahab la moodo, bilicdii haweenkiyo bilo loo dhameeyo. timo boqontaa joogo, baal goray la moodo, baad kanacsaantii, bidix midig isgaadho, burcad lagu xineeyo, bad ku seexanayso, barkanaysa qaaro, huwanaysa baalo, igu beer dilaacshay, u busayla maan barad, ayuu abwaanka yidhi. haddaba beedka qasiidada ama munaasabada waa dhanka bari magaalada oo abwaanka uu ku cadeeyay intaasoo kelimo keliya gabadha cidda ay tahay, qabiilka ay tahay iyo weliba halka ay kasoo jeedo. adigu yaa u taqaanaa gabadha Beerlula inay ahayd iyo weliba qabiilka ay kasoo jeeday? nala wadaag fikradaada, channelkana subscribe iyo like intaba ha ka iloobin. intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena maanta. dib dambe intaynu u kulmi doono nabaadiino.